bismillaahi raxmaani raxiim maalin wanaagsan meel walba aad joogtay daawade kuna soo dhowo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada wararka aad xilligan ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona Somaliland oo war cusub ka soo saartay wadahadaladii Djibouti guulna ka sheegatay inay ka gaartay shirkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Djibouti madaxweyne Muuse Bixi oo arrin cajiib ah ka sheegay kulankii labaad ee maalintii shalay ka dhacay magaalada Djibouti iyo maanta oo kulanka saddexaad uu ka dhacay gudaha magaaladaasi suurtagalnimada in shirka Djibouti uu horseeda inay Somaliland ay ogolaato midnimada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo ballanqaad muhiim ah ka sameeyay kulankii shalay ka dhacay magaalada Djibouti caasimada dalkaasi muxuu yahay shirka uu ku baaqay Saciid Cabdillaahi Dani ka hor doorashada 2020 beesha caalamka oo war ka soo saartay siyaasadda Soomaaliya iyo tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo Somaliland oo shaacisay qodobada ay ku haysato dawladda federaalka ee Soomaaliya maxay tahay sababta madaxweyne Farmaajo uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya Somaliland oo si jees ugu jawaabtay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Puntland iyo xog ku saabsan xildhibaanada gobolada waqooyi oo madaxweyne Farmaajo u sheegay in uu weyn doono codkooda qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan warkeena xilligan markale ku soo dhawo macluumaadiyadaasi oo dhameystiran waa 16 bisha 6 sanadka 2020 warkii oo fidsan xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ayaa waxay war cusub ee shalay ka soo saartay kulankii ka furmay magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti una dhaxeeya labada mas'uul ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland waxay sheegtay in guul ay ka gaartay kulankaasi oo la rumaysan yahay inuu ku soo dhamaaday fashil waa kii ugu horeeyay maadaama si cad ay uga soo bandhigtay aragtideeda iyo waxyaabaha ay ka tabanayso dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan qadiyadda goonistaag iyo arrimo kale oo dhowr ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Faratoon oo u warramay warbaahinta ayaa wuxuu xaqiijiyay in kulankaasi ay hareeyeen caqabado dhowr ah balse kulankii labaad ee shalay la isugu yimaado oo ahaa mid gudub farsamo loo xil saaray waxa kale oo wasiirku uu sheegay in wali ay socdaan kulamada labada dhinac kuwaas oo ilaa xalay ka dhacay magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa maalinimadii shalay oo ahayd kulankiisii labaad oo ay yeeshaan mas'uuliyiinta labada dhinac wuxuu halkaasi uu ka jeediyay khudbad xasaasi ah shirkana wuxuu ahaa wajigiisii labaad madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in shirka wada hadallada ee ka socda dalkaasi Djibouti ay qayb ay ka noqon karaan qof kasta oo Soomaaliyeed maadaama uu xusay in looga tashanayo ayaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ayaa si cad waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro kaasi oo ka dhisan sida uu hadalka u dhigay waaqiciga jira isagoo carabka ku adkeeya goonistaaga ay Somaliland doonayso ee muddada badan ay u raadinayso aqoonsiga sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ka dhawaajiyay in lagama maarmaan ay tahay in la furiyo wax kasta oo lagu heshiiyo isla markaana la meel mariyo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay si gaar ah u sheegayaan in hadalkii shalay uu jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi uu ahaa mid odaytinimo ay ka muuqatay isla markaana wax badan ku saadaaliyay maadaama uu u hadlay si wanaagsan isla markaana uu soo bandhigay caqabadaha shirarkaasi inta badan hareeya iyo waxyaabaha looga baahan yahay qof walba oo Soomaaliyeed maadaama dadka ay shirkaasi isha ay ku wada hayaan dhinaca kalena suurtagal ma tahay inay Somaliland ay shirka ka dhacay magaalada Djibouti ay ku aqbasho midnimada ummadda Soomaaliyeed shirkii Google xaarka ahaa ee wada hadallada dhinacyada Soomaaliya iyo Somaliland ee shalay gali qaybtiisii labaad ka furmay magaaladaasi ayaa waji cusub waxa uu yeelay midnimada laga dhexraadinayo wada hadalladaas kulankaas ayaa wuxuu u muuqdaa mid quusii geliya midnimada maadaama ay Somaliland goobtaasi si adag uga cadeysay mowqifkeeda goonistaaga ee muddada badan aqoonsiga ay u weysan tahay madaxweynaha Somaliland ayaa shalay soo bandhigay inaysan marnaba aqbalaynin midnimo dib u dhalata midaasi oo meesha ka saaraysa dadaaladii ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo iyaga wada qorshe dib loogu soo celinayo midnimadii luntay waxaana xusid mudan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu shalayba ka ambabaxay dalkaasi Djibouti xilli uu ku fashilmay qorshihii midnimada uu dabada ka riixayay isagoo garab ka helaya dawladda Mareykanka inkastoo macluumaadyo kale ay soo baxayeen haddana madaxda Somaliland marnaba waxa la sheegay inaysan ku dhiiran karin ku tanaasulka mowqifka goonistaaga taasi oo sii fogeynaysa ujeedka beesha caalamka uu ka leeyahay wada hadallada Somaliland ayaa waxay beesha caalamka u soo bandhigtay qadiyadeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lafteeda waxay u muuqataa mid qorshe cad la tagtay shirkaasi kaasi oo ah midnimada iyo sidoo kale arrimo kale oo dhowr ah
laakiin mar walba waxaa la sheegaa dhinacyada shiraya inay dhin kasta aysan suurtagal ahayn in go-aan uu ka qaato arrimo masiiri ah maadaama looga baahan yahay in dib loola laabto dadka ay siyaasadda guud ahaaneed ee ka godo. Somalilan iminka suurtagal uma aha xubnaha matalaya inay go-aan ka qaataan midnimo Soomaaliyeed. Sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya xubnaha matalaya suurtagal uma ahan in ay qaataan go-aan gooni istaag loogu aqoonsanayo Somalilan, taasi oo ah caqabada ugu weyn ee mar walba oo la wada hadlayo. dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu war uu ka soo saaray kulankii wadahadalada Somalilan ee dalkaasi Djibouti kaasoo wejigiisii labaad shalay galay. Villa Soomaaliya ayaa shirka wadahadalada ku tilmaamtay mid dhab ah oo dib u heshiisiin ah u dhaxaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Somalilan xilli ay Somalilan mowqif adag ay ka taagan tahay midnimo dib u dhalata. Madaxweynaha Somalilan oo shirkaasi hadal ka jeediyay ayaa wuxuu dardaaran dheer isna ugu jeediyay guddiga farsamo ee lagu wareejiyay wadahadaladaasi isaga oo ballanqaad u sameeyay taasi oo dowladda federaalk inay xalinaysa tabashada Somalilan. Waxaana madaxweynaha dhankiisa uu jeediyay khudbad taabanaysay guud ahaan dadka shirkaasi ka qayb galay quluubtooda. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in sanadihii ugu dambeeyay dhibaatooyin lagu guda jiray, laakiin markaani rajo weyn ay ka qabaan in guul uu ku dhamaado shirkaasi, guddiga farsamada shacabka Soomaaliyeed ay indhaha ku wada hayaan. Haddaba muxuu yahay Somalilan qodobka ay ku haysato dowladda federaalk ee Soomaaliya? wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan Yaasiin Xaaji Faratoon ayaa isagoo waraysi siinaya VOA-da waxa uu shacab ka qaaday inay soo bandhigeen dhowr qodob oo uu sheegay in ay yihiin in lagu heshiiyay wadahadaladii hore balse aanan la fulin. wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan ayaa sheegay in hore loogu heshiiyay in gabi ahaanba la joojiyo hadallada xanafta leh ee warbaahinta la soo marinayo, gaar ahaan mas'uuliyiinta hadallada ay warbaahinta siinayaan. Qodobada Somalilan ay ku doodayso inay weli aysan fulin dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay ku qotomaan kuwa la xiriira deeqaha caalamka in si madax bannaan loo siiyo Somalilan oo aanan loo soo marin dowladda federaalk ee Soomaaliya oo iyada sii gaarsiisa deeqaha beesha caalamka maamul goboleedyada dalka. sidoo kale Master Faratoon ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya hore ay ugu heshiiyeen in si wada jir ah loo maamulo hawada Soomaaliya isla markaana si isku mid ah loo qaybsado lacagaha ka soo baxa midaas oo aysan fulin dowladda federaalk ee Soomaaliya. waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday in wax faahfaahin oo ka bixiyo waxyaabaha laga yeelayo qodobadaasi oo uu sheegay inay ka fuli waayeen dhanka dowladda federaalk ee Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay wasiirka. haddaba maxay tahay sababta keentay inuu madaxweyne Farmaajo dib dalka ugu soo laabto? madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay gabaldhicii shalay kadib markii shirkii Djibouti uu kaga qayb galay kaasi oo ahaa qaybtiisii labaad, waxaana lagu wareejiyay guddi heer farsamo ah. wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ee wadahadaladaasi uga qayb galay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa hadda korjoogteyn doona wadahadalada ay si anbaqaadayaan gudiyada farsamo ee ka kala socda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somalilan. shirka gudiyada farsamada ee labada dhinac ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Somalilan kula matalaya wadahadaladaasi ka dhacaya gudaha dalkaasi Djibouti ayaa maanta wuxuu galayaa qaybtiisii saddexaad. guddigan ayaa maalintii shalay labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somalilan waxay ku heshiiyeen in la sameeyo si ay u anbaqaadaan wadahadalada, waxaana loo asteeyay in xaruntooda ay ahaato dalka Djibouti. furitaankii shirkii shalay waxaa joogay madaxweynaha Djibouti, madaxweynaha Soomaaliya iyo Somalilan, iyadoo maanta gudiyadaasi ay shiri doonaan oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo korjeegtoon doono wadahadalada ay yeelanayaan gudiyada. dhinaca kalena Somalilan ayaa waxay si adag uga jawaabtay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Puntland. Somalilan ayaa ka jawaabtay hadalkii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani kaasi oo ahaa in Puntland aysan aqoonsan doonin waxyaabaha ka soo baxay shirka ka dhacaya magaalada Djibouti. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somalilan Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in hadalka madaxweyne Dani uusan qusaynin Somalilan isla markaana uu muujinayo isbarbaryaaca ka jira deegaanada Soomaaliya. isagoo oo sii hadlaya ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in hadalka madaxweynaha Puntland uu ku jeeday dowladda federaalk ee Soomaaliya balse aysan jirin wax ka dhaxeeya Somalilan iyo Puntland. wasiirka ayaa sheegay in wadahadalada ka dhacay Djibouti ay fursad dahabi u tahay Somalilan isla markaana suurto galeen shuruudihii ay wadatay Somalilan ee ahaa in labada dal oo wada hadla iyo sidoo kale madal furan oo beesha caalamka goobjoog ay ka tahay in lagu wada hadlo. madaxweyne Dani ayaa khudbad uu ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 46 ee baarlamaanka Puntland waxa uu sheegay in Puntland aysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda wadahadalka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Somalilan. haddaba muxuu yahay shirka uu ku baaqay madaxweyne Dani ka hor doorashada 2020
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa isaga oo furaya kalfadhigii baarlamaanka ee puntland waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin doorashooyinka soomaaliya. ugu horreyn deni ayaa ku eedeeya dowladda inay gacan bidixaynayso doorashooyinkaasi sida uu hadalka u dhigay si ay muddo u kororsato. sidoo kale waxa uu sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay sharciga doorashooyinka ee la meelmariyey, wuxuuna ka dalbaday golaha wasiirada ama golaha wakiilada ee puntland inay gebi ahaanba ilaalaan sharcigaasi maadaama aan laga talagelin sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay saamileyda siyaasadda inay isugu yimaadaan shirweyne ballaaran si looga tashado aayaha dalka iyo sidoo kale in la wajaho hanaanka doorashooyinka soo socda ee 2020-2021. deni ayaa sidoo kale waxa uu shaacu ka qaaday in dowladda federaalk ee soomaaliya ay diidan tahay gogol uu u dhigay si wada hadal loogu sameeyo khilaafka hadda jira. ugu dambeyntii wuxuu soo hadal qaaday shirka jabuuti isagoo sheegay inaanay aqoonsan doonin waxyaabaha ka soo baxa shirka ka dhacaya magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti. ugu dambeyntii xildhibaanada gobolada waqooyi ayaa waxay shaacay ka qaadeen in ay suurtagal aysan noqon doonin in codkooda ay siiyaan madaxweynaha soomaaliya haddii doorashada dib loogu laabto. siyaasiyiintan uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar, qaybna ay ka ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed, wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle, wasiir iidaan iyo mas-uuliyiin kale. xubnahan ayaa madaxweynaha aada ugu dhaliilay islamarkaana kulankaasi ku weydiiyey sababta uusan uga qaybgelin wadahadalada maadaama iyagu ay matalayeen somalilan. kulankaasi oo looga hadlaya masiirka gobolada ay kasoo jeedaan. mas-uuliyiinta kulankaasi ka qayb gashay ayaa xaqiijiyeen mas-uuliyiinta ay shaki ay geliyeen in madaxweynaha ay taageeri doonaan doorashada soo socota. guud ahaana wararkii ugu dambeeyay waa naga intaa. warkan warka xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo.